madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa digniin adag u diray ragga caadeystay tacadiga ka dhanka ah sharafka iyo xuquuqda dumarka isagoo sheegay in tacadiyada noocaasi ah aanay meelna ku lahayn shareecada islaamka dhaqanka soo jireenka ah ee dadka Soomaaliyeed iyo xuquuqul insaanka madaxweynaha ayaa wacad ku maray in ragga ka dambeeya xadgudubyada ka dhanka ah haweenka Soomaaliyeed ee ku nool dowlad goboleedka Galmudug in ay mudan doonaan ciqaab aysan ka soo waaqsan doonin oo aan loo raadin doonin marqaatiyaal si loo xukumo madaxweyne Xaaf ayaa ku baaqay dhalinyarada ku howlan falalka caynkaas ah in ay ka waantoobaan hadii kale waxay ku mudan doonaan ciqaab aysan mar dambe ku geysan doonin tacadiyada kor lagu xusay wuxuu madaxweynuhu baaqiisa ku xusay in odayaasha waxgaradka iyo culumaa u diinka dowlad goboleedka Galmudug ay si wada jir ah ula dagaalamaan tacadiyada lidiga ku ah haweenka oo dhibaato aan la soo koobi karin ku reebay haweenka Soomaaliyeed meel kastaba ha joogaan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Ducaale Xaaf ayaa baaqan ku xusay in dambiilayaasha geysta kufsiga iyo jirdilkaba la hor keeni doono cadaaladda loona sameyn doono qareeno u dooda xuquuqda ay leeyihiin dhibanayaasha falalka foosha xun loo geystay si hagar la'aan ah madaxweynuhu wuxuu intaa ku daray in ay maanta laga bilaabo loo sameyn doono ciidamo qaas u ah la dagaalanka tacadiyada ka dhanka ah dumarka qofkii fal caynkaasi ah lagu helana uu mudan doono ciqaab ugu yaraan xabsi daa'in ama dil toogasho oo uu naftiisa ku waayi doono madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa ku soo ganaanuday baaqiisa in maanta aysan ahayn maalintii xaqooda la duudsiin jiray haweenka maalinta ay tahay maalinta ilaalinta sharafka iyo xuquuqda haweenka Galmudug